السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaa ka salaamaya dhammaan Soomaali Maxamed. Waxaa idin leeyahay weedi salaama. Waxaad jeclaystay arrin yar inaan ka hadlo ayaantan social media warwareegaysa. Hore waxaa loo yiri munkarka haddaa munkar u jeedid gacanta ku suuli haddaana awoodin afka ku suuli haddaana awoodin qalbigana laakiin hadda anaga afka awoodnaa inta hadli karna hadlaynaa. tusaale su'aal yar aad weydiina maanta haddii aad aragtiin dadweyne oo xagga ka daaran oo nin indhoola oo ku sii socdo ku dhici rabo intayna badan oo caqliga leh bini'aadanimada xataa haddii aad fiirino waa laga yaabaa inaan qofkaas qabanoo meeshaan dib waa ka leexadaan. taa markaad waxaa ula jeedaa Soomaalidu wax makaratada ee meelaha heblaa iyo heblow iyo heblaa iyo hebel yiri ku hayaan aan rabaa arin yar inaan ka dhaho. maamo maasha allah kheer allah siiyo oo maama xabiib la yiraaho garaar yar ee tirisaa rabaa oo maskaxdii ku soo dhacay inay idin la wadaago. garaarku wuxuu dhacayaa sida tan waxay leedahay iidii iyo qabiila sheekaysteen anigana tusaale aan iska soo qaban aniga qabiila sheekaysan waxaan iri qabiil qeer ma leedahay qanaacaad ma leedahay haddii aan ku qaadnana qabriga qiyaamaha ilman oo helaysaa. markaas wuxuu yiri haddii aan qabiil ah qeer ay baagtii kama nihi qarib aadanayaan haddii ay qaadaan ama igu khafiiftaan idinkaas ka qayqubi. waxaan iri qabiil waaba naqaladee ma qaxootiyaata. wuxuu yiri qaxootigaaba qiimo leh hadduu qaarad kala taga aadamuhu qadariyaa haddii aan qabiil ahay aadami ima qadariyo wax garad agtii qiimo kama li wax ma garata mooye. markaas waxaa yiri qabiil waaba naqaladee qodobkii adduunyada ay qaybta leedahay. wuxuu yiri haddii aan qabiil ahay xanuunaha khatarta ee qalqaliya aadamiga ayaa qayb ka mid ah. markaas waxaa yiri qabiil waaba naqaladee warjirka kuwa dhameeya matii bishaata. markaas wuxuu yiri haddii aan qabiil ahay kaankar iyo kudbaan ahay kuwa wax garan baa kadabkooda jaraya. anna waxaa leeyahay kaankar iyo kudla kalaami mene kariimkoo naga hay. marka taa waa taa Soomaali Maxamed waxaa rabaa inaan 3 eray ka dhawaajiyo dadka caqliga la hadla. tusaalo 3 waxyaabood dadka caqliga leh way dareemi karaan. waxaa idin leeyahay marka qaraabo xariiris waa like comment sharing, qaraabo goys waa blog, qabiil naceebne waa dislike. marka dadkan afartan meelaha jaqjaqle ka leh oo ciyaalkeena jiilkeena labaad qabiil iyo waxyaabo inay ku koriyaan rabaan caqligooda maangaabnimo ugu bedelaan rabaan. waxaa idin leeyahay 28 milyan waa gaarayna 10 milyan waa isticmaashaa Facebook iyo social media. mid walbo oo soo galo oo caqli leh ninka qabiilka hadlaya dislike u saara soo nin jecleys iyo waxyaabo u sameeyeen. marka waxaa idin leeyahay walaalayaal ilmo wada dhalnay qabiil maanta halkaan uu istaajiyay qurbaa ka joognaa wax macno uu soo kordhay male. marka idinkoo raali ah qabiil joojiye waxay leedahay shanta Soomaaliyeed caqliga isticmaala waa idin salaamaha.